السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانسود وينيا ولا لها مكتبتنا كحران. حياكم الله وبياكم. ما أنت موضوع مهم أيان كهذا دونا وحكسب سنيا ودنها أما وحلو يقانو إنجليش كهارت أما في عربي قالوا يقانو القلب. ودنه وحبين كم إذا حبناها بني آدم والدور وين شركة بني آدم كعيارة وحامهم أقفكوا إنه دائما ودنيس إلاليو أو ودنوس وإنه فيزيكالي أكتف نقطة ودنا هيلثي أو شقينية ووظيفة أما شقدي للدوني الصحة أقبطة وحيالا مهمة أيها جراء سأينو ودنها إلالنا ودنوسا نقارنو وحوية ومرق ومصل waxaad ku ilaalin kartaa adiga oo marka ugu horeysa miisaankaaga ilaaliya oo ku sameeya control under control oo aad iska ilaalisid wax kasta oo u keena dhaawac waxa loo yaqaano artery damage waxa weeye dhaawaca halbowlaha sidee u ilaalin kartaa waxyaalaha ugu muhiimsan waxa weeye in high cholesterol ama cholesterolkaagu inuu san kor u kicin sonkortaadana ilaali sonkortaadu ama blood sugar waa inaad markasta isha ku haysaa كذلك وينad iska ilaalisaa dhiikarku isaga oo keeni kara wadna xanuun ama waxaan u naqaano faalig ama stroke waxyaalahaas ugu muhiimsan si aad wadnaaga u ilaalisid oo u noqdo wadne healthy ah oo caafimaad qaba marka dhakhtarka u tagtid dhakhtarku ku baaraya uu eegaya hadii uu dareemo dhakhtarku in uu cudur kamid ah cudurrada wadnaha uu qofka hayo laboratoryga baaritaano kala duwan baa la sameeyaa mesela laboratoryga oo kale marka la eego hadalkan aan ku hadlayna waxa aad u fahmay ardayda caafimaadka dhigta laakiin walaalaha aan caafimaadka wax ka aqoon idinka laftiina wadin wadaagaya baaritaanka waxa kamid ah wax loo yaqaano cardiac enzymeska wadnaha oo loo yaqaano cardiac biomarkers kuwaasna waxa kamid ah troponin CK lactate dehydrogenase ama LDH iyo protein loo yaqaano myoglobin wuxuu kaloo dhakhtarku ku baaraya wax loo yaqaano full blood count waliba gaar ahaan unugyada dhiigga cascas iyo hemoglobinka si loo eego hadii ay anemia ka jirto meesha walidaalika hadii anemia jirto waa dhibaato wuxuu kaloo ku baaray dhakhtarku thyroidka inuu ka qaado test waa muhiim weeye lipidska iyo dufankan taas lafteedu waa muhiim weeye hadduu cholesterolku high noqdana wax weeye dhibaatooyin buu keeni karaa wuxuu keeni karaa wax loo yaqaano coronary heart disease ama stroke ama aynu u naqaano wax la yiraahdo heart attack type 2 diabetes iyo high blood pressure uu ka qaadaya waxa kale oo jira wax loo yaqaano clotting screen ama xinjiraha dhiigga taalifteedu waxay keeni kartaa heart attack ama stroke general test buu ka qaadaya urea electrolytes iyo testyo kala duwan oo iyaga laftoodu ku caawimaya doctorska hadii ay dhibaato ka jirto wadnaha waxa jira cuntooyin lagaga hor yimaado heart attack oo xaqiiqatan yaani ku caawinaya in wadnahaagu si sax ah u shaqeeyo maxaa kamid ah waa inaad cuntadaad cunaysid qiyaasta oo miisaanta oo aad wax kasta iska cunin waa inaad fruitska iyo vegetables-ka waa inaad badsataa khudradda iyo faakahada waa inaad badsataa cuntooyinka sida mesela badarka oo kale waa u fiican yahay wadnaha waa inaad noocyada kala duwan ee loo yaqaano whole grainska waa inaad cuntaa dufanka iska ilaali waa inaad ka fogaataa dufanka aan caafimaadka lahayn proteinka noocyadiisa kala duwan daa'iman waxaad doorataa waxa loo yaqaano low fat protein oo proteinka loo yahay markaad suuqa tagtid oo iibsanaysid cuntooyinka proteinka oo kale ah waa inaad daa'iman doorataa waxyaalaha low fatka ah waa inaad iska yaraysaa milixda saltka ee loo yaqaano sodiumka waa inaad iska yaraysaa markasta waa inaad cuntada aad cunaysid maalintii menu ama inaad list diyaarsataa saxi ah oo healthy ah fruitska iyo vegetableka ama khudradda ama faakahada ugu fiican ee la cuni karo ee wadnaha u fiican maxaa kamid ah waxaa kamid ah bananas muuska avocado liinta ama orangeka tamaandhada iyo spinachka khudraddan iyo faakahadan waxaa ku dhex jira waxyaalo muhiim ah sida potassiumka oo kale magnesiumka oo kale vitamin C guna waa muhiim buu u yahay wadnaha baxsiyadii laga sameeyay ama researchkii laga sameeyay waxay muujisay cuntooyinkani waxay kugu caawimayaan inay yarayso blood pressure levelkiisa ee aynu u naqaano heerarka cadaadiska dhiig blood pressure maxaa kamid ah astaamooyinka ama calaamadaha ka muuqanaya qofku markuu wadnihiisu daciif yahay waxaad arkaysaa qofkaas markasta uu qufacaya markasta wuxuu dareemayaa tacab ama daal iyo daciifnimo waxaad arkaysaa waxaan u naqaano loss of appetite ama cunto xumaan waxaad arkaysaa wadnaha pulsekiisa ama garaaca wadnaha oo dhaqso ah ama aan joogto ahayn ama waxa loo yaqaano palpitations nakhaska waxaad arkaysaa qofkaas nakhaska markasta ku dhigan markasta nakhaska dhibaato ka haysataa waxaad arkaysaa barar dhinaca maaragtay beerka iyo caloosha barar baad ku arkaysaa waxaad ku arkaysaa barar dhinaca lugaha ah haddaynu soomaalinahay dhinaca sportka ama elementada aad baynu uga xunnahay waliba marka la eego rag iyo dumarba waxa weeye socodku muhiim weeye qofku inuu socdo haddaad ordi kartid waad ordi kartaa haddaad socon kartid soco maalintii at least ilaa 30 ilaa 40 daqiiqo maalintii soco dhibta weyn raggeena haysata waxa weeye maqaaxida aad baa loo fadhiistaa waxaad arkaysaa qof maqaaxidu imanaya subaxii ilaa duhurkii uu soo noqonaya soo tukanaya ku soo noqonaya mar dambe waxaa laga yaabaa maalintii inuu cabo 14 koob shaah marka waxyaalahaas ma fiicna inuu qofku maanta oo dhan meel fadhiyo oo uusan dhaqaaqin oo uusan socon oo uusan waqti elemento sameyn waxaa muhiim ah oo kale dabaasha
dabaasha waxa weeye waa sport ka mid ah sportska u fiican muscleska bani aadanka ama muruqyada. waxaad arkaysaa skeletal muscles ama waxaynu naqaano muruqaha lafaha bani aadanku wuxuu leeyahay 639 muruq ayuu leeyahay. marka dabaasha waxaa la yidhi waa mid ka mid a sportska ugu fiican ee muscleskaasoo dhan ama muruqyadaasoo dhan ay dhaqaaqayaan. marka waa muhiim wey taas. marka lagu dadaalo dabaasha haddaad xitaa wiigii saacad aad tagtid moogta swimming poolka oo aad dabaalatid murqahaagoo dhan ayaa dhaqdhaqaaqaya. taasna waxa weeye wadnaha aad bay ugu fiicanta. xaqiiqatan marka wadnaha laga hadlo waa mawduuc aad u ballaaran, laakiin waxaan jeclaaday videogan yar gaaban ee khafiifka ah ee basiidka ah inaad ka faa'iidaystaan insha allahu tacaala. 2 video ayaan halkaa idiin soo dhigayaa. 2da video marka uu videogana dhammaado fartan ku fiiqaya. 2da video aan fartan ku fiiqayo waa 2 video oo muhiim ah. midna uu ka sheekeynayo cudurka sonkorta, midna ka sheekeynayo beerka. waa 2 video gaaban. ka faa'iidaysta insha allah, siina shargareeya ummaddu ka faa'iidaysto, hana idin noqoto sadaqa jaariya. kanaalkana insha allah like ka ilaawina, haddaad nagu cusub tahayna subscribe-ka inoo saar. baarak allah fiikum. waa walaalkiin axmed aadan weeye. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.